بسم الله الرحمن الرحيم. maanta shirkan jaraa'id ee halkan ku qabano iga goynta. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta rabaa inaan kaga hadlo halkan shirkan jaraa'id kullay waxa jiray arrimo aanu bariyahan dambaba dalka ka taagnaa oo ah qadiyada lixda goobood. qadiyada lixda goobood wixii horaan uga hadalay marxalado badan bay soo martay. waxa haboon maalinba halka ay joogto iyadoon turxaan lahayn in laga hadlo. waxa kaliya rabnaana waxay tahay saan hore u sheegnay in ay waxaasi xeerkii ay lahayd lagu hagaajiyo. waxaan mahadnaqlin uga soo jeedinayaa xisbiyada qaranka madaxdooda, komishanka iyo wasaaradda arrimaha guduhuba. kullay arrintaasi dhibtii hakad ayay geliyeen walow ayna jirin ilaa hadda go'aan cad oo la leeyahay waxa waa la joojiyay ama halkeegii baa lagu saleeyay. waxay kaliya taladu ku soo koobantay ama dhawaqaasi ka soo baxayay madaxda xisbiyada iyo wasiirka arrimaha guduhuba inkastoo hadalkoogu isdhex yaalay haddana way laba goor kala hadleen haddana waa ku mahadsan yihiin. kullay waxay sameeyeen tallaabo yar oo kalsooni abuuri karta. qodobka ugu muhiimsan ee dhawaqa aanu ka fahnayna waxay ahayd in dadka deegaanka lala tashado. wartaladu ma xuma, annagu wixii aanu ku talinay waanu soo jeedinay, tiina baanu sugaynaa. walow qodobad badan bay dadku isweydiinayaan. waxaa la isweydiinayaa ninna 60kii buu yiri ninna 60kii nin waliba 60kiisa kolku wada hadal ku yimaado la iman doona. nin waliba 60kiisa wuxuu la iman doonaa kolku wada hadal ku yimaado. taa intaasaan kaga tagayaa ay madaxda dhawaqooga ah. sidaan horeba u sheegnay annagu waxaanu ku hadalay cidda laga cabanayo iyo cidda lagu cabanayo xukuumad bay ahayd. cid qabiil ah oo aanu ka cabanayna ama aanu sheegaynay ma jirto. waxaa la sheegayaa maalmahan dambe in rag ka tirsan beesha Sacad Muuse gaar ahaan Nuux Ismaaciil ay dad ka xudxudanayaan magaalada Hargeysa oo adigu odayaal iska mirood ah awr mirood oo gar yeelatay oo magaalada Hargeysa ku jaanjaantay dhexdeeda oo cid alla cid ay matalaan ayna jirin in la xudxudanayo oo la leeyahay kaalay TV-yada ka hadla oo waxa jiraan dadkii deegaanka oo hawshaasi waan isku ogolahay. wariyaa qadiyadani qadiyad oday miroodihi ka taliyo ma aha. qadiyadani cidda ka hadashay iyo halkay gaarsiisan tahay iyo maqaamkeega waa la garanayaa. dad muxtarim oo salaadiina siyaasiyiin waxgarad u dhambeelaha degan gobolka Awdal bay qadiyadani eeganaya oo mas'uuliyadeeda dusha ku sita ummaduna ku ogtahay. oday miroodihi arrin uu ka taliyo ma aha. marka waxaan uga digayaa dadka walaalahaya war hawshaasi meel fiican bay maraysaa. halkeega inay ku noqon doontaa sheekada qabiilka ka daaya. sheekada qabiilka hal laga daayaan u leenahay. dadka ka soo jeeda beelaha gobolka Awdal ka soo jeedana waxaan u dirayaa baaq ah in la adkeeyo midnimada. midnimadaasi waqtiyo badan oo madmadow galay baa jira. alxamdulillah maanta meel fiican bay midnimadu maraysaan waan in isfahanay. waa in laga ilaaliyaa xagaldaac. halka aynu qadiyadaasi kaga duulay waa in laga hayaa. waxayna sugaya qarannimada adkeynteeda horumarka deegaankan gobolkeenu ka soo jeedo 70% uu ka dib dhacsan yahay gobolada kale. dib u dhac weyn oo xagga horumarka baa jira. marka waxay noo yaala hawlo badan si aynu u soo gaarno gobolada kale ee dalka isla markaana aanu ula jaan qaadno horumarka ay gobolada kale gaareen iyo sidii loo adkeyn lahaa midnimada Soomaaliland. hawlo badan bayna sugay. marka sheekadu qadiyadu 6 goobood arrinkeegu iska dhamaan doona. waa wax ka weyn bayna dhex yaala. wax ka weyn oo inaynu qabanno ay ku haboon tahay baa jira. midnimada hal la adkeeyo. midnimadaasi hadday meel yar xagaldaac ka yimaado shaki badan baa iman doona. tanaana u sababay imika socota waa in go'aankii aynu ka qaadanay lagu ekaada. inagoo isku duuban ayaan ciddii wada hadal u baahanba kula hadli karnaa. inagoo matalayna degmadii Lughaya gobolkii Awdal iyo ummadda Soomaaliland.
marka waxaa nagu adkaynayaa in midnimada la adkeeyo dadka miroodka ah meelaha miranayana waa inuu nin walba miroodkiisa qabto taa intaasaan kaga baxay waxa kale